kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka isha wararka TV qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah qoorqoor oo ka badbaaday isku daydil ra'iisul wasaare Rooble oo farageliya howlaha maamulka gobolka Banaadir Faysal Cali Waraabe oo doonaya inuu ku soo biro siyaasadda Soomaaliya iyo dowladda federaalka oo ka hadashay arrinkaasi gudoomiye Mursal oo cadeeyay inuu baarlamaanka sii shaqeyn doono xitaa haddii uu waqtigiisu dhamaado iska qabsigii ugu xoogana oo ka taagan qaabka loo xulayo xildhibaanada gobolada waqooyi ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madasha xisbiyada qaran oo arrinkaasi war kulul ka soo saartay taliye xijaar oo qorshe la xiriira doorashada ka bilaabay deegaanada Puntland iyo dowladda federaalka oo isku dayeysay inay hagaajiso xiriirka Masar ee u xumaaday Itoobiya darteeda intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka janalka isha wararka TV ase yeeshee haatan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran madaxweyne qoorqoor ayaa ka badbaaday isku daydil wararka ka imaanaya deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaas xilli galabnimadii maanta uu doonayay inuu ka ambabaxo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor xilli uu ku sugnaa eelaboorka magaalada Dhuusamareeb lagu garaacay dhowr hoowiye taas oo la doonayay in madaxweynaha lala beegsado gaar ahaan diyaaradda oo raaci lahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa qorshiisa ahaa inuu ambabaxo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ase yeeshee inta uu ku sugnaa eelaboorka Dhuusamareeb ayaa la sheegaya tiro hoobiyaala oo gaaraya ilaa 3 inay ku dhaceen gudaha garoonka macadda ilaa iyo iminka khasaaraha rasmiga ee ka dhashay hoobiyaashaasi gabaldhici maanta lagu garaacay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb hase yeeshee ila xogogaala ayaa isha wararka TV u xaqiijiyay arrinka ku aadan tirada hoobiyaasha ee lagu garaacay garoonka Dhuusamareeb xilli uu ka ababaxayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor xiriir aan la sameynay saraakiisha dowlad goboleedka Galmudug iyo qaar ka mid ah xubnaha mas'uuliyiinta dowlad goboleedkaas ayay ka gaabsadeen inay faahfaahin badan ka bixiyaan sidoo kalena ciidanka Amisom ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan kuwa Djibouti iyo Itoobiya ayaa waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ku aadan ka jawaabida arrinkaasi waxaana si rasmi ah loo ogeyn cidda ka dambeysa falkan hase yeeshee Al-Shabaab ayaa dhowr mar oo hore tiro hoobiyaala ku garaaceen gudaha magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan garoonka diyaaradaha halkaas oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada Amisom geesta kalena ra'iisul wasaare Rooble ayaa farageliya howlaha maamulka gobolka Banaadir kadib cabashooyin yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu kulan la qaatay maanta xubnaha ugu sareeya maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenada iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir kulankan oo ka qabsoomay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa ahaa mid uu ra'iisul wasaaruhu si degdeg ah iskugu yeeray gudoonka maamulka gobolka Banaadir waxaana la sheegayaa in ra'iisul wasaare Rooble oo xubnahan kala hadlay arrimo ku aadan cabashooyin 24 saac ugu dambeeyay soo baxay oo ku aadan roobabkii xoogana ee ka da'ay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kulankan ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu warbixin kaga dhageystay xubnaha gudoomiye ku-xigeenada oo ku aadan waxyaabihii ay qabteen waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu soo bandhigay cabashooyinkii ka yimid shacabka magaalada Muqdisho ee ku aadan in jidadka caasimadda magaalada Muqdisho aan maanta inta badan bal isticmaalin eena yaraayeen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha sidoo kalena roobabkii da'ay 24 saac ugu dambeeyay ee saameyn xoogan ee ku yeesheen dadka barakacayaasha ee ku sugan gudaha magaalada iyo dulcadka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayaana ugu dambeyn xubnaha gudoonka gobolka Banaadir faray inay si dhaqso wax uga qabtaan biyaha roobabka xiran jidadka caasimadda magaalada Muqdisho iyo caawinta dadka ku waxyeeloobay roobabkii da'ay kulankan ayaana waxaa ku wada sugnaa dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogayaha dowladda hoose ee Xamar waxaana ka maqnaa oo kaliya duqa magaalada Muqdisho Cumar Village ka oo aan gudaha dalka Soomaaliya ku sugnayn dhanka kalena Faysal Cali Waraabe ayaa doonayay inuu ku soo biro siyaasadda Soomaaliya haddaba arrinkan waxaa ka hadashay dowladda federaalka Soomaaliya
kadib markii siyaasiga Faisal Cali Waraabe uu shir uga qayb galay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya kaas oo ay yeesheen beelaha dir ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira awood qaybsiga beelaha dowladda federaalka Soomaaliya. Faisal Cali Waraabe ayaana si aad ah uga hadlay arrimo la xiriira in beesha dir ay saami weyn ku yeelato siyaasadda Soomaaliya waxaana la sheegayaa in arrinkan ay qayb ka tahay qorshe oo Faisal Cali Waraabe ku doonayo in uu ku soo biiro siyaasadda Soomaaliya. haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arrinkan si kulul kaga hadashay gaar ahaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubad ayaa waxa uu sheegay inay caadi tahay shirarka beelaha laakiin wax lala yaabo ay tahay inay ka dhex muuqdaan siyaasiyiin muddo 30 sano hortaagnaa midnimada Soomaaliya isla markaasna haatan ay raadinayaan sidii ay daaqada ugu soo gali lahaayeen siyaasadda Soomaaliya oo 30 sanaba ay ceenayeen waa sidoo hadalku dhigay. wasiir Dubad ayaa waxa uu yiri dad badan ba isoo weydiiyay shirar ka dhacay Nairobi oo beelaha Soomaaliyeed ku shireen waa wax la fahmi karo in dhaqan ahaan bulshadu ay shiraan laakiin waxa indhaha dadweynuhu gar u qabteen nimankii midnimada shacabka Soomaaliyeed hortaagnaa 30 sano ee waliba uqdada iyo xumaanta ku dhex beerayay ee laga kari waayay walaalayaal oo kaalaya oo Soomaaliya isku dhan ah taladeeda ka qayb qaatay inay hadda shirarka beelaha iyo Nairobi ka dhex raadinayaan sidii ay habeen madow iyaga oo dhuumanaya daaqada uga soo gali lahaayeen siyaasadii Soomaaliya oo ay 30 sano bacayeen odayaasha dhuumanaya waxaan leeyahay soo dhawaada walaalayaal albaabadu wali way furayihiin ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka jawaabaya shirkaas iyo waliba hadalka Faisal Cali Waraabe. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka Isha Wararka TV ase yeeshee iminka gudoomiye Mursalna waxa uu shaaciyay inuu baarlamaanku sii shaqeyn doono xitaa haddii uu waqtigiisu dhamaado. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in baarlamaanka federaalku uu sii shaqeyn doono xitaa haddii uu waqtigiisa dhamaado inta laga helayo baarlamaanka bedeli laha. isagoo ka hadlayay fadhigii baarlamaanka ayuu gudoomiye Mursal sheegay in xilhaynta baarlamaanka federaalku uu ku egyahay 27 bisha soo socota ee December laakiin haddii xilligaas baarlamaanka diyaar ahaan waayo aan laga tagi doonin ayna sii shaqeyn doonaan ayuu yiri. gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri ilaa hay-adtii bedeli lahayd ka imaanayso baarlamaanka waa uu sii shaqeynaya ilaa qorshaha doorashada dhammaystiran dowlad goboleedyada iyo hay-adaha federaalka baarlamaanku waa uu shaqeynaya ma jiro baarlamaan iska kala taga iyadoo aan shaqada lala wareegin ayuuna yiri ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. hadalkan ayaana ku soo beegmaya iyadoo uu dib u dhac soo wajahay jadwalkii doorashada 2020 ilaa 2021 oo ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka. iska qabsigii ugu xooganaana waxa uu ka taagan yahay qaabka loo soo xilayo xildhibaanada gobolada waqooyi ee baarlamaanka federaalka. haddaba madasha xisbiyada qaran ayaa arrinkaasi war kulul ka soo saartay. madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed oo soo saartay ku muujisay mowqifkeeda ku aadan doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilli uu maalmihii ugu dambeeyaba hareeyay khilaaf xooggan. madasha ayaa sheegtay inay adkeynayso ahamiyadda iyo qiimaha ay siyaasiyiinta gobolada waqooyi ugu fadhiyaan dowladnimada dalkeeda isla markaana ay rabto in hanaan hufan oo raali lagu wada yahay loo hirgeliyo doorashada xubnaha gobolada waqooyi. waxa ay si cad garab istaag ugu muujiyeen madashu waraaqad uu dhowaan soo saaray gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi kaas oo uu ku dalbanayay inuu magacaabo xubnaha guddiga doorashada ee gobolada waqooyi isla markaasna uu kaga hor imaanaya hanaankii lagu go'aamiyay heshiiskii Muqdisho ee doorashada 2020 ilaa 2021. madasha ayaana si adag uga digtay in hanaan aan loo mideysnayn ee dejiyaan madaxda dalku iyagoona soo jeediyeen in hanaanka doorashadaasi lagu saleeyo habraacyadii meel marka ahaa ee lagu galay doorashadii dadbaneed ee 2016. waxaan cadeynaynaa in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu yahay mas'uulka ugu mudan xagga sharciga iyo nidaamka federaalka labada in uu magacaabo xubnaha gudiyada doorashada ee gobolada waqooyi maadaama uu yahay siyaasiga ugu maamuuska sareeya ee la doortay hogaaminayana siyaasiyiinta ka soo jeeda goboladaasi isla markaasna hadda ah gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka madasha. waxaa kaloo war saxaafadeedkan lagu yiri madashu waxay ugu baaqaysaa madaxda labada heer dowladeed in ay si wada jira u dhameystiraan wadar ogol hirgelinta
hirgelinta hanaanka doorashada 2020 ilaa 2021 lagana fogaado wax kasta oo ku keeni kara muran iyo isqaqabsi doorashooyinka loo madalsan yahay. war-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa isgarab istaag loogu muujiyay qoraal uu gudoomiye cabdi xaashi u kala diray madaxweyne farmaajo, ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada, kaas oo uu ku dalbanayay inuu isagu soo magacaabo guddiga doorashada ee matalaya gobolada waqooyi. cabdi xaashi ayaana qoraalkaasi ku sheegay in xukuumadda Soomaaliya aysan xaq u lahayn inay magacowdo guddiga doorashada gobolada waqooyi sida lagu qoray heshiiska doorashada oo ay gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sababtuna ay tahay inaysan soo magacaabin xubnaha dowlad goboleedyada. qabiil dambe ayaanu ku sii siqaynaa daawadayaale. taliye xijaarna qorshe la xiriira arrimaha doorashada ayuu ka bilaabay Puntland. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa bilaabay dardargelinta howlaha loo idma ee la xiriira sugidda amniga goobaha doorashooyinka, wuxuuna markan ku sugan yahay magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo wafdi hogaaminaya oo booqasho ku jooga caasimada Puntland ee Garowe ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash. kusimaha madaxweynaha iyo taliye Xijaar ayaa waxay ka wada hadleen sidii dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ay uga wada shaqeyn lahaayeen dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo dhowaan heshiisyo looga gaaray magaalada Muqdisho. kulankan ayaana sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray sidii labada dhinac ay iskaga kaashan lahaayeen sugidda amniga doorashooyinka labada aqal, gaar ahaan kuwa lagu qabanayo deegaanada Puntland. taliyuhu waxa uu kormeer ku sameeyay dhowr goobood oo ay ka dhici doonto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana weeliyay saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland. qiimeynta ay sameeyeen waxaa kaliya ku wajahneeda magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, waxaana booliska Soomaaliya loo xilsaaray inay sugaan amniga iyo isku daba ridka doorashooyinka. taliyaha wuxuu kormeer arrimahan la xiriira ku tagay deegaano hoostaga dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug, waxaana la rajeynayaa inuu tago maamulada kale ee haray ee sida Jubbaland iyo Hirshabelle si uu ammaanka doorashooyinka u agaasimo. bisha November waxa uu dalka galaya doorashooyin, waxaana la filayaa in laga bilaabo labada aqal ee baarlamaanka. sidaasi daraadeed maamul walba waxaa loo asteeyay 2 meelood oo loo dhigi doono kuraasta xildhibaanada aqalka hoose. taliyaha waxa uu muuqda mid si hordhaca u fulinaya howshiisa iyadoo doorashada waqtigeeda rasmiga ah aan la shaacin, inkastoo laga cabsi qabo in dib u dhac xoogan ay wajahdo doorashada Soomaaliya. ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku dayeysay inay hagaajiso xiriirka Masar ee u xumaaday Itoobiya darteeda. wasiiru dowlaha cusub ee madaxtooyada Soomaaliya mudane Xasan Macalin Khaliif ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Masar ee Soomaaliya Maxamed Nasser xilli la fahansan yahay inuu sii xumaanayo xiriirka labada dal. sida ay ogaatay dabagalka wararka kulankan ayaa looga hadlayay xiriirka labada dal iyadoo labada mas-uul ay isku afgarteen in la sii xoojiyo iskaashiga iyo wada shaqeynta labada dhinac. danjiraha Masar ee Soomaaliya ayaa isagu dul istaagay sooyaalka wada jirka ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha, isagoona ballan qaadin dowladda Masar ay gacan qaban doonto dowladda Soomaaliya. danjiraha ayaana si gaar ah u sheegay Masar ay dowladda Soomaaliya ka caawi doonto arrimaha waxbarashada oo uu sheegay inay aasaas u tahay horumarka iyo dowlad dhiska. kulankan ayaana sidoo kale waxa ku weeliyay danjiraha safiir ku-xigeenka dowladda Jarmalka. safiiradan ayaana si wada jira ugu hambariyay xilka dhowaan loo magacaabay wasiiru dowlaha, iyagoona uu rajeeyay kamira dhalinta shaqooyinka qaran ee horyaala, isla markaasna uu muujiyay isgarab istaag. ugu dambeyntii wasiiru dowlaha madaxtooyada ayaana uga mahad celiyay danjirayaasha booqashada, isagoona la wadaagay dadaalada dowladda Soomaaliya ee xoojinta amniga, kobcinta dhaqaalaha iyo adeegyada asaasiga. waxa uuna ahaa kulankii saddexaad ee dhexmaray safiirka Masar ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda. shalay ayay ahayd sidoo kale markii wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga danjire Axmed Ciise Cawi uu qaabilay safiir Maxamed Ibrahim Nasri si loo faaqido xoojinta hababka iskaashiga iyo horumarinta xiriirka labada dhinac. intii lagu guda jiro kulankan ayaana waxaa looga dooday dhowr arrimood oo muuqda oo ku saabsan xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal ee walaalaha u dhexeeya iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee gobolka iyo dunida inteeda kale. wararka ayaana sheegay in Soomaaliya ay hadda isku dayeyso inay dib u hagaajisay xiriirkaasi, hase yeeshee macadda sida ay u maareen doonto siyaasadii markii horeba ku riixday dhanka Itoobiya. guud ahaan daawadayaal wanaga inta
warkii aad kala socoteen janalka isha wararka TV fadlan haddii aan ugu cusubtahay nagu soo bir oo subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka sheergareeya laagtiina waa inoo muhiim daawadayaal waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen isha wararka TV